السلام عليكم dhammaantii aad baan idin salaamayaa khayr iyo wanaag baan idin soo rajeynayaa waxaan maanta ku soconnaa insha allah vlog fiican aan kasoo duubi doonaa hadduu eebba idmaayo African Day oo markaa ka dhici doonta Pakistan oo dhammaan dadka Afrikaanka ee ku sugan Pakistan ay kasoo qayb galaan sidoo kale safiirada kala duwan ee dalka Pakistan jooga ee Afrika ka socda ay kasoo qayb galaan goobtaas waxaa lagu soo bandhigaa hidaha iyo dhaqanka iyo culture-ka sidoo kale cuntooyinka kala duwan ee Afrika isticmaasha dharkooda sidoo kale presentations baa laga soo jeediyaa lectures baa laga soo jeediyaa yani runtii xarun aad wax badan isku weydaarsada weeyaan Afrikana yani hawlaheeda iyo xaalkeeda wax badan lagaga faaloodo insha Allah xagga soo soconnaa waad la arki doontaan insha Allah in badan hadda waan kusii soconnaa I think waxaan soo daminad habsanahay waxay la socdaa saaxiibkay friend Abdurrahman welcome Abdurrahman to my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Karim Abdurrahman Olawale from Nigeria. Okay, Abdurrahman. How many years you have been here? I'm here in Pakistan 7 years and some months, like 4 months now. Okay. 7 years and 4 months in Mashallah, Pakistan. Mashallah. I think you are senior. You done your BS also. You done your master. Yeah, I just completed my MS in sociology also in International Islamic University. Alhamdulillah. Mashallah, it's good. Alhamdulillah. I think today we are going to African Day in ISSI, Institute of Strategy of Islamabad. Yeah. What we are doing for there? Actually, they invite all African students from various university to attend this program for them to know that there is a lot of international students exactly from African students. Okay. Like they want to know about the culture of different African people come from various different countries, and they want to know what are the challenges we African students are facing in Pakistan, and how are they going to solve this problem. Okay. That is why they are inviting us. Mashallah, I think it's a good program. Inshallah, we do our vlog, inshallah, and we see a lot of things. Inshallah. We are coming back to give you a feedback, inshallah. Inshallah, we'll do that. sida hadda arkaysaanba wadadan ku sii soconnaa oo weli maana gaadhin xarunta ay ka qabsoomayso markaa kulanku ka qabsoomayo iyo bandhigu waxaa soo duubay halkan oo kale yani saad wadooyinka u aragtaan sida quruxda badan ee loo habeeyey ee loo nadiif ayuu yihiin isla markaana cagaarka looga dhigay runtii aad bay ugu dadaalaan Pakistan gaar ahaan Islamabad xagga deegaanka oo Islamabad oo kale magaalo aad loo qurxiyay oo runtii aad loo nadiifiyay weeyaan marka wadooyin aad qurux badan runtii weeyaan sida ka arkaysaanba aadna loogu dadaalay dawladuna runtii ay gacan badan iyo hawl badan ay ka geysatay. wadadan hadda aan marno waa wado plastic laga sameeyay sida marka arkaysaan imka yani calaamadaha hareeraha ka soo baxay waa wado laga sameeyay plastic oo runtii biyuhuna dul yaacayaan oo aan waxba alaale waxba ka tareyn marka runtii waa horumarka iyo teknoolajiyada la gaaray oo halkan ku soconay waan gaarnay marka aynu wada socono insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are marking delightful day 25 May, the African Day. Actually, here is my friend Abdurrahman. He's from Islamic University and he belongs to Nigeria, and he's one of my best colleagues here in Pakistan. Abdurrahman, we are here actually. We have a traditional and actually cultural material and properties from Nigeria. Yeah. So Abdurrahman, help us and tell us the names of this. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You are welcome to Nigerian store, and we are marking the independence, African independence. In Institute of Strategy of Islamabad in Pakistan. Actually, we have many things from Nigeria. This is a drum. A drum. They use. Okay. The drum. This. Yeah. Do you know how to? Yeah. Show me. Okay. You put this like. Okay. And yeah. This is the same guy. Yeah, like this picture actually. And Abdurrahman, what's the name? Who is this guy? Who is this guy? Mr. Boy, who is This one this? is knock of what do you call what do you call that state? Calabar. Calabar. Okay, he was kind of emperor, right? Yeah. Emperor. Okay, Yeah, okay, you can emperor. Okay, And we also have this. okay. This is for the farmer. Farmer material as well. Yeah, farmer materials. This one- They call it O. Actually, this one prevents you from this.
Okay, okay. Like it's So just like a small. this is traditional, right? Yeah. The tradition, actually, yeah. So this one, when you wear it, Uh-huh. it gives you some shade around. Okay. So we'll be working. Like the farmers used to wear this one. Okay, okay. And this we are using in the olden days. Yes, when there is no plastic shoes. Okay, yeah. I think it's like a Stone Age. Yeah. Stone Age. At that time. Okay, this is traditional shoes, actually. Yeah. And this also is traditional cap. Traditional cap. Okay, Yeah. okay. I like it. This. Yeah. Yeah. It's Come. little. Raman, how comes your head is bigger than mine? Really big. Now we have some traditional dress as well. This dress, like they call it owi. Owi. The old people, they used to wear this, and the young ones and old people also used to wear this. They call it kampala. They call it kampala. Kampala. And this also they call it shekere. Like they use it like this. waxaan ku dhex jirnaa weli African Day baan joognaa waa halkan waa goobtii lagu qabanayay markaa bandhiga lagu qabanayay dhammaan dawladaha ka soo qayb galay kulankan ay markaa ay ku soo bandhigayeen Arabka iyo qalabka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo cuntada markaa ay lahaayeen hadda waxaan la joognaa waa qaybtii koobaad seen arkana waa waxa weeyaan waa Maghrib Morocco weeyaan markaa seen halkan ka arkaysan waa calankoodii halka hoosena waxa ku qoran markaa Morocco ayaa ku qoran waxyaabaha aad arkaysaan oo dhan ee cadanaanta le Arabiyada la isticmaali jiray markaa wax lagu qaboojin jiray inta Arabka markaa waxba lagu shubaa waxa lagu shuba sideeda u haynaysa hadii baraf qabow lagu shubana qabowgeesa ka dhigaysa hadii markaa lagu shubo wax kulana markaa kuleelkaasi ku haynaysa marka halka waxa ka arkaysaa waa koobkii adduunka iyo wacdarihii fiicnaayay ay ka geysteen markaa ayagu ayuu isticmaalayeen markaa qalabyo badan oo kala duwan baad arkaysaa xagan waa hadayaadkii la siin jiray ayay kamid tahay marka halkan waa Arabiyada guryaha lagu isticmaalo kale waxyaabaha la qaato halkan waa cadarada sida gaarka markaa Morocco ay caan ugu tahay markaa ay soo saarto marka waxaan halkan arkaynaa hidiyo dhaqan aad u fara badan waxaad arkaysaa inay aad u isticmaalaan materials ka samaysan markaa birta inay ka samaysan ay aad u isticmaalaan baad arkaysaa ma sha Allah Morocco waa soo bandhigtay waxayda dhamaan kuwa kale insha Allah waan soo eegi doonaa hadda waxaan maraynaa qaybtii labaad oo Jazaa'ir ah oo qaybtii koowaad aan soo booqanay qaybta labaad markaa Nigeria ay nagu xiri doonta waa markaa dawladihii Carabta oo dhan hadda soo wada mari doonaa hadda waa Jazaa'ir oo runtii yani bandhig aad u qurux badan samaysay halkan waxa weeyaan Cabdimajid Tabuun weeyaan waa madaxweynihii wadanka Jazaa'ir weeyaan halkan waxaad arkaysaan waa cuntooyin kala duwanaa ee markaa ay soo bandhigeen markaa Jazaa'ir الله يبارك فيكم marka cuntooyin fara badan kala duwan bay soo bandhigeen aribadii kala duwanaa marka imka kuwan waa bookis marka ay ku soo bandhigayaan dhammaan marka waxyaabihii ay ku caan ahayd Jazaa'ir yani taalooyin kala duwanaa sida buugi kayd Soomaaliland oo ka sameysay huda Ali Banfasa ka sameysay oo kale weeyaan waa buug yani ku tilmaamaya dhammaan yani goobaha kala duwan ee Jazaa'ir caan ku tahay oo kale ku tilmaamaya halkan waxa ka arkaysaa waa calankii iyo taalooyinka kala duwanaa marka la isticmaali jiray ama dadku ay isticmaalaan waxaad arkaysaa yani farshaxanka aad u qurux badan leh ee magaca Nigeria marka ay ku taala ayaad arkaysaan runtii waxaad arkaysaan bandhig aad u qurux badan oo fiican bay soo bandhigeen kuwan oo kale waa kuwa guryaha kale loo isticmaalo kale ama meelaha lagu qurxiyo marka waa cuntadii iyo bandhigii kale labadaba way soo bandhigeen qolada halkan joogta waa safaaradda ay ka socdaan markaasi marka ay soo bandhigaan yani marka bandhigooda dhammaan safiiro kala duwan baa halkan imanaya way soo booqanayaan way soo marayaan marka qolo walba in la arkaa cuntadooda iyo dhaqankooda hidahoodii iyo marka cid u baris karayso oo markaasi fiican u soo jeesa aan si wada aragno qolooyin kale insha Allah Today we are marking actually a fantastic day, and we are here actually. My friend is he's from Kenya. He belongs to Kenyan High Commissioner in Islamabad, Pakistan, and he will tell us about his traditional actual culture, his traditional properties. He's actually this is the culture and tradition of Kenya. So please tell us and just inform us and give us a little bit introduction and brief introduction about these things. So basically what you see here is a representation of, it's just a summary of what Kenya is. This is our culture. These are some of the jewelry that are worn by the different cultures. This is some of the animals we have in our country, the big five. We have the lions, the giraffes, the elephants, the rhino. These are some of our cash crops. Kenya is a big exporter of tea and coffee, but we also have other products like nuts and everything. We also have other products, as you see on our screen there. We are very good producers of avocado and coffee. So whatever you see is just a material that markets Kenya. This to give you a short brief of what Kenya is and what we represent as a nation. Yeah. As you see behind there, this is our president. So, and this is our Kenyan flag.
This is our heritage and it's a good way to celebrate the African Day. Thank you. Thank you so much. نحن في معرض كبير، كل الناس يعني الموجودين في هذا البرستان جاءوا من قارة افريقيا، يعني تجمعون في هذا المكان، وهذا المكان مكان كبير، يعني كل دولة يعني تعرض باشيائها، بالكلتشر حقها، بالطعام حقها، بكل شيء، بالدريس حقها. واليوم والان معي يعني ماما من السودان. الله يبارك في ماما، مرحبا بقناتي. مرحبا بكم، في مرحب، ويعني سعيدة أن ألتقيكم. ممكن تقرب هذا الميكروفون؟ تمام. نعم. شو اسمك ماما؟ أنا اسمي ناهد مصطفى حامد عمر. ما شاء الله. متى نعم. تأتي بهذا الباكستان؟ شو يعني معلومة عن حياتك من باكستان؟ يعني أنا حياتي في باكستان بدأت تقريبا في 31 يناير 1994. 94 يعني almost 30 سنة أنا موجودة في البلد. قضيتها 25 سنة تقريبا وأنا موجودة في كراتشي، والحين أنا رجعت جيت باكستان، جيت إسلام آباد تقريبا لي زي 4 سنوات موجودة في إسلام آباد. ما شاء الله. أنت مع عائلتك كلهم موجودين هنا؟ نعم، أنا عندي ولدين موجودين هنا. سمعت أنك دكتورة يعني أيوة. أنا بعمل، أنا عندي أحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وعندي دبلوم عالي في الإدارة العامة، وعندي PMP. بروجكت مانجمنت بروفيشنال. ما شاء الله. تمام. ايوه، الاحترافيه. انت مدرسه ولا الان؟ لا، هذا لا ادرس، لكني ارغب في ان ادرس. ارغب تدرس ان شاء الله. أيوة. نعم. انت بجد يعني باللغه العربيه جد تمام، باللغه الانجليزيه وكمان باللغه الارديه. نعم. أيوة. نعم، اجدهم الثلاثه. الله يبارك، ما شاء الله. الان شفت ناس كثير يعني جاوا من اماكن اخرى مثل اسيا ومثل افريقيا. نعم. كانوا يعني ياتون في هذا المكان ويشتغلون ويدرسون. نعم. لما يعني يجدوا خبره تعلموا اللغه الارديه راح يدرسون يعني. نعم. يعني كانوا مدرسين من هذا المكان يعني. نعم. واصلا موجودين يعني حتى انا طالب في جامعه اسلاميه في باكستان. ايوه. يعني كان ناس كثير يعني من الدول الاخرى كانوا مدرسين في هذا المكان. نعم. نعم. ان شاء الله. انا اعرف يعني في بعض الدكاتره احتمال يكون اساتذتك موجودين. زي دكتور بشير بحر. ايوه. زي ثاني في دكتور كان فتح الرحمن، بروفيسور فتح الرحمن قرشي. صحيح. هؤلاء هم اساتذه الجامعه. ما شاء الله. في الجامعه الاسلاميه. الله يبارك فيك. اليوم انت تعرف اشياء كثيره بهذا المكان. نعم. اذا تجي لنا معلومه تعطي لنا معلومه عن هذه الاشياء. معلومه في تقريبا عندنا المنتجات السودانيه، المنتجات الزراعيه السودانيه كلها معظمها. ما شاء الله. هنا يوجد العربي الجمده. اوكي تمام. هذا هو الصبغ العربي. الصبغ العربي وهو تقريبا الانتاج بتاع السودان بينتج حوالي 80% من الانتاج العالمي. ما شاء الله. ما شاء الله. 80%. اشهر شجره اللي هي تنتج هذا العربي الجمد تدعى شجره الهشاب. اوكي تمام. شجره الهشاب، وعندنا برضه شجره الطلح. هل هناك فرق من هذه مع هذه؟ هناك فرق من هذه؟ هذا سيم. نعم، زي بعض هم تقريبا. صحيح. وعندنا هنا العرديب. وعندنا الكركديه. أيوة. والقنقليس. والدوم. هذه شوي يعني كلها منتجات. واللوز يعني كلها زراعيه. كلها منتجات زراعيه. تمام. يعني هي حتى مفيده صحيا، يعني هسه اكتشفت فينا عندها فوائد صحيه معظمها بما فيها العربي مثل هذه يعني. حتى الدوم يعني. دوم يعني مفيد جيد في خفض ضغط الدم وتوازنه. نفس الشيء الكركديه، نفس الشيء هذه بقيه اسمع الاشياء الطبيعيه كان يعني احسن لنا من نعم يعني كلها طبيعيه، لانه احنا ارضنا ذاتها ارض بكر. ايوه. وارض خصبه جدا ان شاء الله. وارض مسطحه وممتازه يعني. فعندنا كل هذه المنتجات زراعيه. ما شاء الله. يعني بيقولوا زي كما يقولوا حاليا هي اورجانيك. ما في اي اضافات كيميائيه. ما في اي اضافات كيميائيه لاي منتج من المنتجات. ما شاء الله. باعتبار انه ارضنا نحن ارض خصبه. ايوه. مساحات واسعه. ما فكر ايوه. هو في معظم الاراضي بتتروي بالطريق شنو الامطار يعني. تمام. ما شاء الله. وهذه يعني شنطه قصيره. نعم، دي مطابق منتجات جلدية. صناعات جلدية. طبعا السودان معروف يعني معروف بانه هو غني بالثروة الحيوانية. تمام. فهذه عندنا موجودة يعني يستخدمون يعني جلد الحيوانات باشياء كثيره يعني. جلد الحيوانات هذا اظن هذا جلد الثعبان. تخيلي نوع من الثعابين. من الثعابين. ايوه، هذا جلد ثعبان يعني فيه يستعمل ممكن اذا فتحنا يخرج لنا؟ لا، ممكن تفتح هذا تخش على خف الثعبان. هذا هو جلد الثعبان، جلد الأصلة. وهذا جلد الأصلة كلها ناتشورال. ما شاء الله. طبعا مشهورين يعني ايوه هذه يعني بعض الحيوانات نعم. هذا جلد يسوونه بعض الحيوانات كلها ناتشورال يعني كلها جلود طبيعيه. ما شاء الله. واحنا طبعا بنتمتع بثروه حيوانيه هايله في العالم. اعرف كثير من السؤال والله. ايوه. يعني شو هذه؟
هذا تدعى الحق وحده، هذا بيكون أيوة. في المناسبات مع يعني بتاعت الزواج. تمام. الزواج يعني تستخدم. وحدها تاخذ هذه؟ لا ولا معها؟ هذا هو الغطاء. ايوه. وتدعى الحق. اسمها الحق. ويوضعون فيه هذا الصندل، الباودر بتاع الصندل، بودرة الصندل. اوكي. بعدين يسوون كذا ولا يستخدمون؟ لا هي تكون اصلا طحنت وتوضع هنا في الاناء ده، وهو يدعى الحق. تمام. فيعمل في عادات من عادات الزواج يعني. عندنا في عادات الزواج. ما شاء الله ما شاء الله. فعادة اسمها جرتي. حتى عادات يعني عادات الزواج يعني شوي يعني حتى الان ما تغيرت يعني. لا ما تغيرت. يعني يمكن تحدثت لكن ما تغيرت. نفس الله يسلمك. لكن ان شاء الله خير. ان شاء الله خير الامور تهدأ ان شاء الله، ويعود السودان افضل مما كان. افضل ما كان يعني. الله يبارك فيكم ان شاء الله. شكرا لك اشكرك بكثير ان شاء الله. الله يجزاك. ما شاء الله maanta waxaan ka qayb galnay anagoo Soomaali ah Afrika bandhigii Afrika oo cuntooyinkii hidii dhaqanka Soomaalida waxay leedahay maasha Allah wadana ka badan boo ka qayb qaadanay wala wada garanayaa waxa loo yaala baastadii canjeeladii iyo suqaarkii beerkii xalwadii la dhameystay maasha Allah la jeclaaday sambuskii la jeclaado dhamaaday burkii la jeclaado dhamaaday maasha Allah wixii علينا سوالي يقول لنا ما شاء الله هذا حسوي مادي سفيرتي kala duwanaa oo dhanba soo booqanaya oo imaadey goobta si markaa qolo walba loo soo arko waxyaabo ay hayaan iyo markaa waxyaabo ay soo bandhigayaan hadda waxay marayaan Jazaa'ir ay marayaan ay markaa eegayaan waxyaabo ay hayaan iyo cuntooyinka hayaan iyo markaa ay dhadhaminayaan ma sha Allah xasan ay tahay meel aad u fiican dad badan kala duwan isugu yimaadeen waa qolinka safaarada ka shaqeeya markaa safiiradii weeyaan hadda maanta waxay marayaan goobaha kala duwan ee markaa la joogo markaa qolo walba waxay soo yeeriyaan markaa cuntooyinka hayaan iyo waxyaabaha ay markaa ay soo bandhigeen. Our country is located in East Africa and we are a 20 million population. Hamza, we are rich of livestock. We are also rich of bananas. That's our main and this is our main dish. We used to eat this as a breakfast. Those two are for our lunch. And those are our desserts. So please have a try for it. Yes, and give them some to taste. Yes.
You can have a taste. Ambassador. I was told that Somalis normally say yes, we are African, but we are Somalis. Yes, we are Africans. We are a member of the United Arabs. Yes, but Somalis, they with pride they say yes, we are, but we are Somalis. Yeah, we are Somalis as well as we are Africans, by the way. We brought Africans. We have our own culture, we have our own language. This we say with pride. So this is all our culture. Let me introduce you. We used to cook this for chai. And this is our flag. Very nice. Very good. hadda halkan joogno waxa weeyaan waa xarunta ISSI qaybtooda librariga sidoo kale waa meesha ay ku qabtaan barnaamijka iyo waa halkii maanta safiirada ay joogeen ay kaga hadlayeen mawaadiicda ay markaa wax ku soo bandhigayeen markaa discussion-kana la yeeshay xoogaa oo wax laga jeediyey marka waa meel runtii aad u qurux badan kutub badan iyo bugaag badan oo xaruntu ay qortay iyo qaar markaa guud ay yaalaan marka waa xarun dad badan ay ka qayb qaataan oo researchka iyo waxyaabaha markaa mushkiladaha waddanka haysto kale iyo gaar ahaan Afrika sidoo kale xaruntan qaybo kala duwan bay markaa la shaqeysaa ka Afrika si gaar ah bay bugaag gaar ah uga qortaa masha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maanta waxa weeye 25 bishii May waxay ku aastaysan tahay maalinta Afrika. Waxaan joognaa ISSI oo loo gaabay ISSI oo ah Institute of Strategic Studies in Islamabad. Taking taxiskan waa taxisada ugu waaweyn Islamabad waxa lagu qabtay kulan aad weyn oo ay ka soo qayb galeen ambassadorada Afrikaanka diblomaasiyiinta siyaasiyiinta Pakistan madaxweynaha centerkan organizationka madaxweynaha taxiskan kan haysta waxa lagu soo bandhigay dhaqamo kala duwan waxa lagu soo bandhigay hiddo iyo dhaqan heeso dhar waxa weeye halkan sida aad uga jeedaan waa Center of African Afghanistan Middle East and Africa institute-kan waa institute-yada ugu waaweyn hadda shirka ayuu dhamaaday hadda shirkii laga baxay markaa Soomaalidu way joogtay qayb bay ka ahayd Soomaalidu ambassadorka Soomaalida joogay ambassador shirka Pakistan mitala maktabadan ayaa la isugu yimid maktabadan lagu qabtay shirka maktabadan sidoo kale waa maktabad aad u weyn oo kamid ah maktabadaha ugu waaweyn area tan Islamabad aagan la joogo marka meesha tan anu xubin baa ka ahaa xubin maaragtay ayaan ka ahaa ISSI waa markii afraad shanaad aan imaado marka waxaan rajeynayaa kulamadan oo kale inay noo sii socdaan oo noo qabsamaan sanad walbana halkan ku qabsanaa sidoo kale kulamada dadka ka hadlay waxaa kamid ah ambassador Shirwac ambassador Jamal Bakar oo Ethiopia ka soo jeeda ambassadorka Morocco Mohamed Kurmani ambassadorka Algeria ambassadorka Nigeria ambassadorka Seychelles ambassadorka Kenya high commissionerka Kenya kulanku waxa kulan aad u qiimo badan kulanka noo soo dhamaaday waa noo gabagabo وايد سلام يا خير عفمد بدير تشينيا فلوكان صدق كسينبا waxaan ka duubaynaa ama aynu runtii aan ka qaadanay goobtan oo ah markaa ISSI markaa Institute of Strategic Studies in Islamabad oo markaas uu ustaadku inoo Maxamed Farwal inoo faahfaahiyay goob runtii ah yani barnaamijyada kala duwan lagu qabto gaar ahaan barnaamijyada yani mashaariicda waddanka ka jira oo dhan inta loo soo diro ayay markaa books ka qoraan articles ka qoraan sidoo kale waa xarun markaa Afrika laftirkeedu barnaamij gaar ah ka qorta si gaar ah markaa يعني ورول هيسا waxay qabataa maanta shan laad kamay yani barnaamijkan aan maanta ka qayb qaadanay ee marka aad arkayseen ee dad badan kala duwan ka soo qayb qaateen campus stories kala duwan ay yimaadeen dawlado badan baa yimaaday oo meeshan oo ma goobtan yimaaday yani barnaamijku wuxuu ku bilaabay marka hore in safiiradu ay wada yimaadeen halkan ay soo wada fadhiisteen kadib marka dood iyo barnaamij la sameeyay gabadha marka yani mashruucan yani gacanta ku haysa oo marka ay barnaamij fiican qayb badan soo jeesay ugu dambeyn marka waxa la isla tagay يعني حاجة يعني بندقة ومركز الدولة ولا وحي أي هيسية مركز دقن كذي وحيد أي سفعان صوب بنكتي وأنت يكون أدو قيمة بدن بوها أدنى وعجيب أبوها إن شاء الله كنا ما بدن أدو كردون أو أدو وابين كانوا كان أي قمان دونان مركز إذا طوضة إياه صوب بنكتي دونا مركز أتكلسي وقول على مركز صوب بنكتي دونا أنت كل من كنا كنا حيرة عن تكتريا دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته